faraxsanahay anoo qayb ka ah waqtiga ugaaska hogaaminayo inaan kusoo laabto. Waqtiga ugaaska hogaaminayo sidaad la socotaan dhammaantiin degmada Luuq ayay ka baxeen, waxayna u baxeen dowladda federaalka ee magaalada Muqdisho, waxayna ku baxeen martiqaad rasmi ah oo ay ka heleen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. muddo 25 habeenna waxay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho kulamo badan oo beeshiisada iyo madaxweynaha iyo dowladdu ay la soo yeesheen. wadahadalladaas ka bacda ka soo baxay ugaaska iyo waqtigiisa inay yimaadaan caasimadda gobolka Gedo magaalada Garbaare oo aan maanta markaas ku suganahay oo ka soo degnay halkaana ugaaska iyo odayaashiisa ay ku baaqaan shirweyne beeshiisada ah oo markaasi lagula xisaabtamayo maamulka Jubbaland iyo dadka ka talinayo. waxaan rabaa inaan u sheego gobolka Gedo iyo khaas ahaan degmada Garbaare haddii aan nahay annaga siyaasiyiinta iyo waxgaradka beeshiisada waxaan diidanahay oo ka soo horjeednaa sida ay wax ku wadaan maamulka Jubbaland mana aqoonsanin. sidaas darteed waxaan diyaar u nahay in la sameeyo maamul cadaalad ah oo Jubbaland oo dhan ka taliya, cadaalad ku sameeya laga bilaabo maanta. haddii aan nahay siyaasiyiinta iyo waxgaradka beeshiisadana ma aqoonsanin maamulka ay hogaaminayaan Maxamuud Sayid, Axmed Madoobe iyo Ndokorey. waxaana diyaar u nahay in aan markaasi si cadaalad ah oo beeshiisada iyo Soomaalida kale ee Jubbaland degta loo sameeyo maamul cadaalad ah taas oo markaasi Soomaali oo dhan isku raacsan yihiin. sidaas hadalka badin mahayo. aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta shucuurkayga ma cabiri karo. aniga oo 88 ayaan filaya igu dambeysay gobolka Gedo inaan maanta ku soo laabto waan ku faraxsanahay. sida noola soo dhaweeyna waan ku faraxsanahay. waxaan salaan kaga wadnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo siyaasiyiinta iyo dhaqanka ku sugnaa magaalada caasimadda Soomaaliya. wixii markaasi loo yimidna ugaaska ayaa markaasi faahfaahin doono. intaas ayaan marka ku soo kaabinayaa. جزاكم الله خيرا. Gracias.